بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله aad bay farxad noogu tahay in aan ka soo qayb galno shirka maalgashiga SSC Khaatumo runtii waa maalin taariikhi ah oo dadka deegaankan iyo Soomaaliba runtii fursad u ah aan soo koobay shirkan wuxuu daahfurayaa deegaankan ahmiyadda uu leeyahay ama khayraad ha noqoto ama maalgashi ha noqoto dadka Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inay mudnaan gaar ah siiyaan waan bogaadinayaa maamulka dowlad goboleedka SSC Khaatumo anigoo ah gudoomiyaha bangiga Amal waxaan maanta ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ganacsatada iyo dadka caalamka isugu kala yimi Facebook forum ka yimi waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ku soo dhawaana baan leenahay caasimadii SSC Khaatumo waxaan leenahay maanta waxa bilowday horumarkii iyo maalgashigii iyo Khaatumo oo maalgashiyo fara badan maanta ku soo dhaweynaysa gobolka Sool caasimadda SSC Khaatumo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in shirkan oo kii koowaad oo kala oo Soomaaliya ku qabsooma inay noqoto meeshii ugu horeysay lagu qato caasimadii SSC Khaatumo ee gobolka Sool maanta waxaan ku sugannahay hotel Casuura oo lagu qabanayo shirkii ugu horeeyay ee ganacsi oo ka dhacaya caasimadda SSC Khaatumo ee Laascaanood shirkaas wuxuu ka hadlayaa sidii loo maalgashan lahaa SSC Khaatumo waxaanu soo dhaweynaynaa qof kasta oo Soomaaliya oo maalgashanaya halkan waxaa ka bannaan fursado badan oo aad qaali u ah waa maamul goboleed bilow ah oo ka caawin kara in businesskaaga iyo hawlaha ganacsi aad wadato iyo maalgashiba uu kor u soo qaado marka waxaan rajayn doonaa in dad badan oo Soomaaliya ay ku soo hirtaan maanta waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa dadka nooga kala yimi gobolada kala duwan ee Soomaaliya ilaa caasimadda Soomaaliya ilaa maamul goboleedada kale oo dhan waxaanu ku faraxsanahay inaan idin soo dhaweyno mar koowaad iyo mar labaadba waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada waxaanu kaloo sugaynaa asxaabta kale ka imanaysa gobolada kale way idin furan yahay gobolka Sool iyo SSC oo dhan runtii farxad weyn bay u tahay bulshada ku dhaqan guud ahaan deegaanadan in markii ugu horeysay shirkado caalami ah ay halkan isugu imaan doonaan in ka badan 150 shirkadood oo fursado maalgashi ka fulin doona deegaanada SSC Khaatumo oo dhammaan baahanka caalamiga ah iyo kuwa ajaanibtaaba ay ku jiraan waa farxad weyn runtii in maanta shiwano noocan oo kale lagu qabanayo magaalada Laascaanood waa markii ugu horeysay 30 sano kadib oo fursado maalgashi noocyan oo kale ay ka hirgalayaan deegaanada SSC Khaatumo waxaan rajeynayaa haddii alle musharax kuwan ka badan inay deegaanada ka furmi doonaan maamulka SSC Khaatumo oo dhawaan la aasaasay dagaalada ka soo baxay durba waxaad moodaa inuu cagta saaray wadadii horumarka uu la shan qaadayo bulshooyinka caalamka isagoo durba ka soo kabanaya dhibaatooyinkii deegaanada ragaadiyay Soomaaliya ka rabay aad iyo aad